looga galaanaaba horta qalad ah iyo lacagta mashiinka doolarka faalsada lagu sameeyo waaw taasaad iga dabageynaysaa hobyoy ma ogeen hobyoy horta gaangisnimadaas aaday u xun tahay iyagana allaha kasoo hadeeyaan leenahay inta dambena alla nagama raaciyo hobyoy صح ma garato waa hooyooyin ilmo leh labadaba waa dad waaweyn marka noloshu meel xun inay kula gasho aaday qaali ay u xun tahay marka waxaan leenahay allaha soo hadeeyo waa sax ubadkoodana alla kama raaciyo amiin labada gabdhoodba hadduu hanuun u qoran yahay ilaahaan u baryaynaa abaayoy buuq yara ila socdo oo ku salaamayaa hobyo waa kuu fadhiyaa هاي قال waana ku taaganay qaali هاي وما سلطان waxaan dhibkaan dhacay ma ogi hadda arkay ma xab shalay horta maxkamada mid hore way jirta maxkamadda qaybtii labaad shalay ahayd marka bajaaj yaa kala waa gabadha kala yaa waayadana fahiimo quujo waa gabadh dhulbahantaha والله إلهي إيجانا كسوهتي إلهي كيسرح ويوي حبسي كما بحكاك إلهي إيجانا كسوهتي ودعينينا اليوم مكو قدر سكرا ku darso أنا مسكحديد هاد الرأي اليوم كسو داعي خلطنا يا اللي أركن سو مالوين فهيمة قوجواناك تدقال تميسي أو جيسية دقهت خبيل كذا جيسية واحد ما هو هاي ما دعي كرتو أبايو إن دad كان سو مالان كسو جيد وأخدد بديهين إن الدروغة دي أقليان ما دعي كرتو أو بوليس كان أوعين إيش القولين ma sheegi karno walaa ani ma ogi adi sidaas ma u malays أنا ساسا أملايي because قمر سومان وادون تالو دحي marka inay gabadha shirqoolaan oo la xiro ama rabeen ay ka aarsadaan maadaama ninka taliyahooda dhan uu xiran yahay nin dhan oo taliye ah xiran moogtahay oo halgamaaya ah uu xiran cida ma fahantay 10 kala laga haystaa marka in ay saas ka wada ma dhici karto abaa waa soo bixi doonta waa gabadha ugu horeyso sheegtayna in noqdo xataa dhici kartaa sheekadaas because sir inay taa dhici karto ma fahantay oo gabadha shirqool la gelinayo ani saasa u fahmay marka gabadha maxaa kor saaran oo laga rabaa heed kor saaran gabadhan fiiri cidda iyada kicisay cidda qabiilkeeda hurdaay ee hurdada ka kicisay gabadhaas qorayay qaabatay busto meesha busto isku bursi jir ma arkin miya marka dagaalka dhacay naagta tagta waaye marka in xarash loo hay ma dhici karto oo dhibkaan in loo geystay oo adoomeedaan ma aragtay inay xirto loogu talagalay iyada qof weyn waaye dadka cadowgeeda iyo rixinkeeda way kala taqaanay dee marka waxaa fiiri in loo soo dhaxmar kuwan reer xamaryaasha ee maadaama ay qabi jireen inay u soo dhaxmareen oo meesha loo dhex dhigo ad maxaa ka ogtahay reer xamaryaasha riyaan bajaaj iyo cidaas ma qabi jirno adi haye iyada loo soo dhaxmaray in loo soo dhaxmar ma dhici karto dadkan dad xamar qirxi jiro waaye gabar ma inaga daroogeer u dhiibi karin anaaba ku dhiibi kara daroogeer hadaa loogu talagalay oo hadda riyaan bajaaj waxaa ka dhigta miyaa qof la soo dhaxmaray oo la soo dirdiray fiiri waxa dhici karta iidoona ogaan xataa iida boorsadeeda loo geliyo oo lagu shirqoolo xataa macna iida ma fahantay dadkan koonfur waaya la dhahay ma fahantaadi haye waa la wada shirqoolaa kala ma jeclo fiiri fahiimo qooje iyo naagtan riyaan bajaaj dadkaas waa u sameeyeen moogdo adi Soomaali weyn u taa wajigooda waxaan ku weydiiyay adi sirdoonka ma u shaqeysaa aniga surdaan nuu shaqeey lacala le waaya aniga muuba laakiin ani waxa sadaa saas waan ogaa doonta wiigan qololaa la soo furo doona aniga xirnay ku dhacaan reer waqooyigana ayaga afkooda isku qarxinaayo maalintii saas ee soo dhacda ani isoo qabo gacanta soo taagana adiga waa sheekada xoogaa waada fahmin ba waxa lagu yiri ba ayadaaba fiimo quuja jecleyd qamar suugaan ayaa lagu yiri waxa jeclaad mala naag nin qabiilkiisa dhan dhameysay ku jeclaanay adiga oo ilmay u dhashay miyaada ogeyn adigu inay dadka ilmo isu dhaleen وردت كان فيري ناقت اللي شيء يشاك أو رير بقوية أو بتعيدة مقعد يشاك مقعد أيق مقن خذن قرنا نمنا محاقبة مجارتين الدون كنا دعوة ما لكن ده فيري هرت دتك أفاره ده هو يوحى إسقابهم أنا قاعد دنكاس كله هدنا هنوم دنكاس يسوق اللي سموها أنا دنكان كاتوسا دت كان قبيلة دردر حبيبتي أدري البقوية حرش وهاي سامية نين رير بقوية ما كسافر هذيك وكاشكيه qoy ma jac kugu soo dhajiye maxaa sida dadka ugu bahadilaysaa dadkan dad sharaf la waayo reer qoyga ku xadgudub aniga wixii dhacaleen sheegooya qofka Soomaaliya waxa dhacaysa u sheegaysa qalad waayo waxa waa gabar oo wad magaaladeeda ka soo carartay oo Nairobi joogta waxa leedahay reer qoyga eriyana maxay ku falaan gabar maxay haysataa dhici kartaa way dil gaara ida dhees ayaan hore moogdo waxa gabar iyada dilaceedii garbasaarkeedii wadato iska soo cararto oo
kenya joogto xataa magaaladeeda isku aamini weyday حبيبتي فيري رالي دغيسان رالي غادا دغيسنا انا غير وقول ra'yi qaldanaa sheegaysaa dee dad dhan baa sharaftooda ku xadgudbaysaa adi horta abgaalata maxaa kaa galay ku dhex geli reer waqooyi iyo dhulbahalka maxaa ku dhex geli may waa qalad dee ani mid jecel qof oo shakhsiyadiisa dad dhan qabiil dhan inaa u gaftid oo tiraahdid gabaray eryanayaan waa xoogaa qaladaan u arkaa mideeda kalese iyagaa wiil iyo abti isku ahe adiga abgaalaa tahe ina adeertayaa tahaye aan ku ceshta anaa habar gidir ahe maxaa kaa gala adiga meeshaada ii fadhi ku soco riyaane السلام عليكم ورت دمانتين وايد سلام ملي مقلها haa ورت كل انت ماشي سارن انتنا دغيسانيس دمان وايد سلامه kana la yiri keena la yiri horta dambiga laga qaadaa gabadhan hoosana tubaraaca iska daaya ko qof walba ra'yiga meesha u soo koray ha ka hadlo gabadha qolka iska lamiya ma aqaan qofkii hadda hadlaayay oo dhahaay macnaha reewqooyga u kululaanaysa markii hore ko gabadhan ay soo koraysay cid kale u tubaraacaysay ma fahanti sheekada meeshan qabiil maba taagnaba iyo qof loo tubaraaco gabdhahaasay taagan tahay gabdhahaasna qofkii niyuuska shalay dhageysanayay Kenya daroogana may sheegin dowladda ka daroogana may qarin lahayn ma fahanti anaga sawaaxiliga dhageysanay macnaha waxay sheegeen gabar Norway ka timid in ay dil ku sameeyeen ama ay dagaal ku sameeyeen ma fahanti sidaas aawadeed ay maxkamadda u saareen maantana Riyaan Bajaaj naftirkeeda waxay soo gashay leef markii Osaan oo kale qolol looga soo furtay saaka looga hadlayay waxay dhahday macnaha isha gabadhan ayadaa kiiska u dhiibatay kuwan social media macnaha kuwa wararka gudbiya maxaa la dhahday adi raadiyaha ma fahanti lacag dhiibtay ayadaan ugu tala gashay in social media la keeno sheekada oo la buubuuniyo ma fahanti qofka naga soo horjeedo oo na dacweynaya iyada leef afkeeda waxay ka dhahdayaa shay weeyani qofka naga soo horjeeda ani iyo fahiimo qoojo dhahdo qofka naga soo horjeeda oo dacwada meesha maxkamadda heerka maxkamadda ana gaarsiistay qofkaasaana ogolaaday inuu social media geysto lacagana la bixiyo taas benteed ma anaga in lacag la bixiyo ani hadan ku baahdo aan ku dacweysto Kenya aan joogno waa macnaha isha social media ana warqada qornaa lacagan bixinaa waxaan leeyahay aniga waxaan rabaa kiiskayga macnaha wariyaash inay imaadaan oo macnaha social media uu ku faafo ma fahanti waa gart qofka ilaahay qafuur raxiim waa risqa asaga bixiya asaga madaaya qofka ilaahay maalitaajir uu ka dhigi karaa riyaan macnaha xoolaheeda in dadku ay ku sasaan horta qalad waay ani riyaan ilama dhalan isku qabiil lama صح صح laakiin waxaa nacbaa qofka bini aadanka risqo ilaahay siiyay iyada adiga aduu ilaahay siiyay diyaarad ha raacdo helicopter ha raacdo ilaahu cirka majid ka samaysato ya wixii ilaahay iyada u qoray horta maray gabadhan waa run laakiin riyaane adiga fiiri adoo oo macnaha business yar ganacsi yar iska haysatid haddii lagugu arko adoo marba meel u duulaayo dee waxaa la isleeyahay riyaan lacag waxaan wax sheekada ka weynay xaggee ka keentay waxaan iyo webiga yaa badan bay qof walba isleeyahay سلام عليكم haye riyaan waa dhacday qadkaa ka xumaa haye waxaan siinayaa والله السلام عليكم أنا قيسي beerlula kaa soo horeyso ku soco beerlula السلام عليكم. وعليكم السلام maxaa ani sheekada ma fahansanaysa u socotaa walaal haye haddaa fahamsaneen qadka ku jir waa xoogaa yar markaad fahamtid adaa ka hadli doontid haye shukri aad iyo aad baa mahadsantihiin horta waxa weeyaan gabdhahan laga hadlaayo dee waxa weeyaan wax uu lagu qabtay waa waxa iyagu sameeyeen oo dee lagu hayo marka waxa weeyaan dee dacwa ku socota waxaana dadka qaarkood u dhihi reer waqooyiga dacweeye reer waqooyiga la cola reer waqooyi inan yaro oo meelaha iska marmaraysa dan iyo heella kama laha hadday doonayaan dee way joogaan Nairobi oo weligoodna way joogeenoo daqiiqad bay faraha ku qaban karaan oo iyagaaba Nairobi iska lahaan jiray oo joogi jiray intaan dadkan qaxoontiga ku duudin marka dadka qaar baa wax iska cuqdadaysanoo cudur reer waqooyiga ku dhacay
marka wax kasta oo la sheego waxay leeyihin reer waqooyi asaana reer waqooyi baa sideera reer waqooyi baa dadka ka dambeeya reer waqooyi baa wax dacweeyey reer waqooyi ilaa haddaan reer waqooyi afka lagu haynin lamaba noolaan karin dadka qaarkii cuqdad baa ku dhacday cuqdad reer waqooyi ah marka qaarna way iska gawaan raacinaya maba yaqaaninba meel u socdaan iyo hataa tidhaahdaa reer waqooyiga halkay degaan maba garanayaanba yaa waay reer waqooyiga maba garanaya waa la sheegaya leeyihiin special dad meelahan ku nool maaragtay oo walaweyntaa hoose ah ma ku sii waabana fogaanaynin qoonbaba jiraba ma ku sii na adiga fogaanaynin maxay tahay tootigaa ka hadal wala weyntaada maahane naga degnaayo habaryaa cajuusada taafiya darana gabadhaasaa ka hadashay gabadhiina way iska aamusta sheekadii waa la dimiyay hadda anaga noo soo kicinay maxay tahay dee waqooyi anaga wax nooga dhigaysaa fiir abay macaanto anaa reer sheekadayda waqooyi la iscaayaa reer waqooyi wada riyaan ku soco riyaana adoo hadlay sidaad abay muxuu waa ahaa la qadka ituure kaaga ma ah aqaano qadka miyaa ma la ituure ma ogi wallaahi ma maya walaa fahmin qofna kuma tuurin qaali marka waxaa waaye wasaas waa macaanto qolka horta adaa iska leh qofna iyo qof utubaraacin qabiil koonfur iyo waqooyi midna yaan la keenin sheekadaa horta qabiil lama taagna waqooyina ma taagna koonfurna ma taagna fahiimina dhulkeeda kama soo cararin saaxiib haddee halgantayna dhulkeeda u halgantay ayadoo macnaha markay halgankeeda dhammaaday oo dhulkeeda nabad u noqday tartiibkeeda waa dumar ninkeeda iska soo raacday iyadaa koonfur imaatay so waxaa garatay maaha fahiimina mala aflagaadeyn karo riyaan bajaajna mala aflagaadeyn karo qabiilna meesha mala aflagaadeyn abgaalna lama aflagaadeyn karo cid kale uma tibaraaci karto dhulbahantana lama aflagaadeyn karo qolkaaga xor adaa u ah qofka aragtid inuu qabiil meeshan ku imaado tuur intaasaa kaa codsan horta koo haye wixii marka aniga waxaa kuu sheegaa newski kenya la ku wada moogtahay sax soomaalida waa la yiri iyo ku tirateen iyo waxay buunbuuniyaan iyo waxay iyagu macnaha maskaxdooda ka keensadaan iskaga hadlaan sax adiga hadda news marka macnaha meesha joogtay ama wadan walba ku nooshahay markuu news soo baxo fiira dilaa geysatay markii askarku soo qabato ama maxkamad uu geynayo waxaa la sheegayaa wixii aad geysatay la sheegayaa ama wixii lagugu soo qabtay Soomaa sax okay newski haddaan laga sheegin daroogadan baasi la sheegayo dadkan intay ka keensadeen aan taas rabaa inaan fahmo walaa qaabo badan ay kusoo geli kartaa hadda ani ma dhihi kari sidaas waa okay newska Kenya shalay aniga waa dhageysanayna luuqadoodana waa naqaanaa soo waxa gartay ma ka maqlin macnaha waxa maqlay le bas gabar Norway ka timid inay gabdhahan ay la dagaaleen haye ay maxkamadana la keenay kiiskana oo macnaha kiiska labaad uu yahay maantana oo macnaha aan la qaadin laakiin kiiska mar saddexaad la furi doono ha mar saddexaad wuu jiraa ayaa la yiri wuu soo socdaa adii la furi doono October bilowgeeda war walaalayaalow iga raalli ahaada Norway ma cadaan baa mise waa Soomaali intaas ay may waa gabar Soomaali oo dhalashada Norwegian ka haysato oh my god okay روايد قبل نينكي فيرسدين نينكي لما أقاني قبل روايد قبل كجرت صح ما فهمتي قبل إصدقال عيان مركا وحي جرورتي لها نقولك أنا ممكن دبابي كرنا ماشي مجوجنو وكيسكي دولة كجرتي منهن دم بالله حنبارنو سن ده لك من دم بالله حنبارنونا waa mahadsantahay riyaan waxaan siinayaa marka waxaa ku dhihi lahaa bas intaas ani waxaan usoo korin lahaa inaan ku dhaho dadkan oo qabiilka rabaan haddii rabaan inay qabiil